qisada digaagadii madaxa laga jaray ee nooleyd muddada 18 bilooda iyo mucjisadii la tusay dadka ku dhaqan tuulada Florida ee gobolka Colorado ee dalka Mareykanka qadar yar kadib ayaa faahfaahinayna. sheekadan mucjisada ayaa waxay ka dhacday tuulo lagu magacaabo Florida ee gobolka Colorado ee dalka Mareykanka sanadii 1945 waxayna ku dhacday Lloyd Olsen lamaana beera falata oo digaaga dhaqda waxayna diyaarinayeen afartameeye digaaga oo ay madaxa ka jareen si ay subaxnimada ugu iibgeeyaan suuqa tuulada Florida. wax walbana si caadi ah ayay ugu socdeen kadib markii ay damceen inay dhogorta ka fiiqaan digaagan ayaa waxay arkeen arrin ka yaabisay. waxaana socotay mid ka mid ah digaagii ay madaxa ka jareen oo iyadoo bilaa madaxa haddana nool oo socota oo ciyaaraysa digaagii kale ee la qalay dhexdooda. la yaab ma laha in neef ama digaag marka la gowraco muddo xoogay uu firgado, laakiinse tani waa ay ka duwanayd oo digaagadani waa ay socotay wayna ciyaaraysay. waxayna isdhaheen bal suga marka ay dhiig baxdo ayay bakhtiyeysaa, laakiinse arrinkani ma aysan dhicin oo digaagadii mucjisada ahayd waa ay sii noolayd ilaa iyo subaxnimadii markii waagu uu beriyey oo weli digaagadani ay nooshahay oo ay soconayso kagana ciyaarsiinayso baadadka iyo surka go-an si caadi ah ayaa qoyskii waxay ugu magac dareen digaagadii Mike. waxaana qoyska Nolsen ay go'aansadeen inay u qaadaan digaagadii madaxa gooneyd suuqa, waxayna u soo bandhigeen saaxiibadoodii xoolo dhaqata beeraleyda oo iyagu rumaysan waayey waxay indhahoodu arkayaan oo ay qabteen digaagad madax go'an oo nool oo khafis ku dhex jirta 24 saac kadib markii madaxa laga jaray. Olsen ayaa dabadeed ku quudin jiray digaagadan irbad dalqada go'an uga shubi jiray cunno caloosha u gasha, wuxuuna si aysan neefta ugu dhigin ku sifayn jiray xinjiraha xira neef mareenka irbad loogu talagalay. haddaba arrinkan mucjisada ayaa warkeedu ku faafay gobolka Colorado iyo Mareykanka oo dhan mar kaliya sidii hilaaci, waxaana iskugu yimiday saxaafadda iyo ummad Ilaahay oo idil si bal indhahooda ugu arkaan mucjisadan la sheegay bal inay run tahay iyo in kale. waxaana xitaa ay gaadhay jaraa'idka weyn ee Life magazine oo maqaal ka diyaariyey loogu magac daray mucjisadii Mike, digaagadii aan madaxa lahayn. waxaana nin maalqabeen ah uu soo jeediyey qoyskan reer tabareedka ee Olsen inay bal u qabanqaabiyo wareeg mucjisadan digaagan lagu soo bandhigayo dunida iyagoo lacag ay ku heli doonaan. qoyskan busaaradaysan ayaa u arkay fursad qaali ah oo ay lacag ku samayn karaan maadaama ay xayraan ku noolaayeen. markaa kadib ayaa sanad iyo bar waxa ay ku wareegaalaysanayeen gobolada Mareykanka iyaga iyo digaagii madaxa go'naa iyagoo ku soo bandhigaya ugana qayb qaadanaya lacagna lagu galayo laguna fiirsanayo digaagadan mucjisada oo malaayiin qof oo daafaha Mareykanka iyo dunida isugu yimiday ay iyagu qaarkood ka argagaxsanayeen ayna u daawasho tageen digaagadan. waxayna ahayd markii ugu horeysay ee dunida lagu arko xawayaan madax go'an oo madaxa laga jaray oo mucjisada Ilaahay haddana nool. waxa kale oo baaritaano cilmiyeysan oo lagu sameeyey digaagada Mike jaamacadaha culumta sayniska ee Mareykanka badidooda kuwooda ugu waaweyn ay jawaab iyagu ay u waayeen ay u helaan sida ay ku noolaan karto digaagada madaxu maqan yahay oo haddana nool. arrinkan wuxuu sidaas ahaadaba habeenada ka mid ah ayaa iyagoo hurda hotel qoyskii reer Nelson kuna guda jira socdaalkoodii bandhigyada waxay ku baraarugeen mar kaliya digaagadii Mike oo neeftu ku ceshoontay oo sii qallabaysa, waxaana cuganaha u fariistay xinjiro oo ooday neef mareenadii. qoyska Nelson waxay ku soo ilaaween irbadii ay ku sifeynayeen dhuunta digaagada goobtii xafladda ay ku soo bandhigayeen habeenka. waxayna awoodi waayeen inay markaan badbaadin karaan digaagadoodii mucjisada ahayd ee lacagaha ay ku guranayeen. waxaana bakhtiday digaagadii caanka noqotay ee Mike kadib markii ay nooleyd 18 bilood duniduna ay ku baraarugeen awoodda mucjisooyinka Ilaahiga. waxaana kooxaha culimada saynisku ay markaa kadib ay baaritaanadii digaagada ay soo bandhigeen ay ku micneeyeen markay micno u waayeen in digaagadani asliyan ay maskaxda ku leedahay xagga margiga ee dambe
ayna suurtagal tahay in qaybo ka mid ah oo muhiim ah oo maskaxdeedu weli ay shaqaynayeen oo ay amrayeen xubnaha jirka ee digaagadan. waxaa kaloo ay sheegeen in xinjir ay xirtay inay dhiig baxdo, waxayna diideen oo qura in ay ku tilmaamaan mucjiso ilaahiya. dadweynihii ku dhaqnaa tuulada Fluita oo ay si gaara u taabatay mucjisadan ayaa waxay taallo uga sameeyeen digaagadan faras magaalaha oo ay sanad walba xaflad lagu xasuusanayo ay ugu dhigaan. like oo la wadaaga asxaabtaada sheekadan mucjisada ee la yaabka badan ee digaagadii Mike.